بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والله قيمها لي مeel kasta oo dunida ka joogtaan waa idin salaamayaa waxaan idin rajaynayaa insha allahu tacaala maalintiina iyo habeenkiina galabtiina fiidkiina casarkiina xilligaad ku jirtaanba inuu idin wanaagsanaado inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala awlaadda idin xifdiyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala dhammaanteena ilaaliyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa inagu kulmiyo waxaan allah subxaana wa tacaala weydiisanayaa qof kasta oo dhibaataysan inuu alla dhibaatada ka qaado qof kasta oo murugaysan inuu alla murugta ka qaado intaa kadib walaalayaal waxaan rabaa inaan idinla wadaago buug ka mida buugaagta aan qoray oo runtii ka mida buugaagtaan ugu jeclahay mid ka mida buugaagtaan ugu jeclahay waa buug ka hadlaya barbaarinta carruurta sidaad ogtihiin nolosha aasaaskeedu sideedaba oo ummaduhu ku kala hormaraan waxa weeye sida awlaadda barbaarin saxa loo siiyo buugga runtii dabacaddii labaad ee la daabaco waxaa la yidhaahdaa sidee ilmahaagu kuu maqnaa runtii waa mashruuc 8 sano cilmi baadhis oo aan samaynayey eegayey baarayey fiirinayay talooyinka iyo tusaalayaasha ugu wanaagsan ee ilmaha lagu tarbiyadeeyo buugga kan runtii waa fursad qaali ah waalidiin badan baa ka faa'iidaystay insha allahu tacaala waxaan isku dayi doonaa maadaama waalidiintu iga codsadeen inaan taxano yar ka sameeyo oon marba qayb yar soo qaato insha allahu tacaala inaan sidaa sameeyo oo marba qayb yar ka soo qaato runtii waa buug fursad dahabi ah waalid kasta oo awlaad haystana aan kula talinayo inuu gacantiisa soo galo wax ka wanaagsan oo aynu dhaqaale ku bixinno ma jiro awlaaddeena wax ugu wanaagsan aynu u baahan inaan dhaqaale ku bixinno waa awlaadeennana waxa ugu muhiimsan ee ay inooga baahan yihiin waa inay tarbiyad saxa ay helaan tarbiyad saxana ma heli karaan haddaanu waalidku aqoontii tarbiyadeed uusan helin ilmo iska hagaagaa ma jiraan wax iska toosa nolosha bini aadamka ma jiraan wax waliba dadaalka iyo waqtiga la geliyo ayaa ka soo baxa dadaalka iyo aqoontana dadaalka iyo muxuu ahaa la geliyana waxaa ka horeynaya waxaan aqoonta loo leeyahay waayo mararka qaarkood waa dadaashaa markaasaad wixii natiijadii la rabay imaanin waayo haddii aadan lahayn aqoontii aasaaska ahayd ee loo baahnaa markaa dee dadaalkaagii ma miro dhalayo sidaa daraaddeed anigoo ah waalid og dhibaatada waalidka ku haysata qurbaha iyo dalkiiba waalid walbana u baahan yahay inuu ogaado oo barto oo tab iyo xeelado wanaagsan u helo sidii ilmihiisa u tarbiyadeyn lahaa ayaa waxaan rabaa inaad hadiyadan qaaliga ah runtii ka faa'iidaysataan meel walba dunida ka joogtaan waa buug aad helaysaan waa idiin soo diraynaa waa dalbanaysaan lacagta ku baxaysaana dhaqaale runtii aad iyo aad u tiro badan maaha waa wax yar aan ma garanaysaa ahayn maalin kafee wax lagu cabo marka runtii buuggan waa buug qiimo badan waa buug ka kooban ilaa 7 qaybood oo soo koobaya tarbiyadda aasaaska ah ee waalid kasta aqoonteeda u baahan yahay si uu ilmaha loo baahan yahay u soo saaro waxaan idinla wadaagayaa qaybta hordhaca ah oo aan maanta ku bilaabayo runtii horta inaan wax rabaa ogaado inaad la fahantaa buugga kan maxaa igu kalifay inaan qoro anigu waxbarashadaydu may ahayn muxuu ahaa barbaarinta iyo aqoonta barbaarinta midnaba markaygii hore maysan ahayn waxaan bartay cilmiga xisaabta maadada xisaabta accountingka maaha sida wax loo xisaabiyo maaha waa maadada xisaabta ee jaamacadaha laga barto ayaan bartay markaas macallin baan ahaa sidaa daraaddeed maysan ahayn takhasuskayga laakiin baahi muuqatay oo aad u ballaaran ayaa maxaa la yidhaahdaa keentay inaan mawduucan wax badan ka baaro ka barto ka eego ka akhriyo ka dhegaysto dadka khubarada ah kadibna soo gunaanado oo buuggan kusoo gunaanado waxaan idinla wadaagayaa 2 qiso cajiib oo runtii igu dhaliyey mawduucan inaan u biyeysto oo aan u dhaqaaqo buuggana way ku taallaa qaybtiisa hore hordhaca ah runtii markaan waddankan aan ku noolahay denmark markaan imi ayaan maalin anigoo maraya meel waxaa jira jidad baabuurtu aan loo ogolayn oo dadka lugeynaya keliya loo ogol yahay xitaa dadka baaskiilka wata aysan ku socon karaynin jidadka anigoo maraya ayaa hortayda waxaa socday faamil caddaan oo danish oo nin iyo gabadh dhalinyaro ah iyo gabadh yaroo dhaleen waxaa dhacday marka gabadha yar way daba socotay xilli waxay ahayd qorraxdu sii dhacayso way daba socotay
iyaguna way iska socdeen oo way sheekaysanayaan. Nin baa dhinacooda dambe socday oo baaskiil isagu aan saarayn laakiin riixaya saa gacanta ugu haya. Ninkii isagoon arkaynin ayuu gabadha halkaa qoobka uga dhiftay baaskiilkii. Gabadhii aad bay u ooyday, maxaa la yiraahdaa, way fadhiisatay, way ooyday. ninkii isagoo ka xun buu wuxuu ku yiri waan ka xumahay, maxaa la yiraahdaa, umaan jeedin. Waalidkii anigu marka waan eegaya xaaladdan saas u daawanayay, film ahaan baan u daawanayay. waxaan eegaya oo gudahayga ka guuxaysay haddii adiga aad ahaan lahayd, haddii ilmahaaga ahaan lahaa maxaad samayn lahayd. waalidkii marka gabadhii waxay ku yidhaahdeen dhib ma leh soo soco. ninkiina waxay ku yidhahdeen dhib ma leh iska dar. ninkii wuu iska tegey isagoo ka xun. gabadhii cabaar bay ooyday, dib umay soo eegin, way ooyday. markay ooyday way soo kacday, way iska soo tagtay, oohintii way iska tirtay, way iska soo socotay. runtii waxaan is iri haddaad adiga ahaan lahayd ama qof kaleeto oo Soomaali ahaan lahaa muxuu samayn lahaa? wuxuu samayn lahaa ninkaa uu ku qaylin lahaa, haddaanuba laba dagaalamin ku buuqi lahaa. gabadhaa yari marka maxay baran lahayd? arrinta muhiimka meesha ku jirta waa tan. gabadhaas waxay baran lahayd in dhacdo kasta si adag looga falceliyo, inaan dulqaad la samaynin. qofka markuu ku dhirbaaxo 3 dhirbaax lagu dhifto. marka runtii arrin baa iga baxda. waxaan is iri sababta keentay inay waalidkani saa u falceliyaan, adigana gudahaaga aad dareemaysid inaad saad u falcelisaa maxay tahay? gabadhaas runtii maalintaa waxay baratay cashar aad iyo aad u muhiima oo barbaarinta. runtii dulqaadku wuxuu yahay bay baratay. way kasoo gudbayaa. maalin kale anigoo maraya meel xanaano ciyaalka lagu hayo oo ciyaalka yaryar lagu hayo, ayaa xanaanada inta badan waxaa joogay caruur ajnabi ah, Soomaali iyo Carab iyo ummadaha kaleeto ah. dadka shaqaalaha ah ee ka shaqeeya meesha aad bay waxay ugu dhibanaayeen caruurta tan. way qaylinayaan, way boodayaan, way duulayaan. marka su'aal baan isweydiiyo ah, ilmahan waddankani ku dhashayna maxaa u diidaya inay sidan kuwan muxuu ahaa waddanka ku degan oo kale u dhaqmaan? arrinta marka halkaa iga soo baxday waxa weeye kala duwanaanshaha nooca barbaarineed ee guryaha ka soo qaataan. labada arrimood, labada dhacdo ayaa waxay igu kaliftay inaan mawduucan baaro. anaa dib isu baaray, anaa Soomaaliya maxaa la yidhaahdaa tegey Soomaaliya tegey, maskaxdaydu ama garaadka ama caqligaygu baaritaanku dib u eegay taariikhdan soo marnay, dib u eegay dadkeenu siduu ahaa, dib u eegay sida ugu wanaagsan ilmaha loo tarbiyadeynayo, dhinac kale ka fiirshay diinteennu barbaarinta waxay ka qabto, dhinac kale ka eegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaabku wax u tarbiyadeyn jiray. waxaa ii soo baxay marka nidaamka tarbiyadeed ee islaamku inagu dhiirigelinayo ama diinta islaamku ina faraysaa inay tahay nidaamka saxda ee ah ilmaha in dulqaad iyo geesinimo iyo magaranaysaa jacayl iyo naxariis lagu tarbiyadeeyo. waxaa jira nebigu calayhi salaatu wasalaam weligii qof muu maagin, muu dhibaataynin. waxaad garanaysaan xadiiskii Anas bin Maalik ee ahaa nebiga calayhi salaam intaan u khidmaynayo u shaqaynayo weligii waxaan sameeyey imaad oran maxaad u samaysay, waxaan samayn waayena iguma canaanano oo ma oran maxaad u samayn weyey. arrintan marka waxay muujinaysaa walaalayaal, haddaan kusoo dhawaado inay ahmiyadda ay barbaarintu leedahay. runtii waxaan rabaayoo kale inaan idinla wadaago barbaarintu inaan ahayn ilmaha in dhar iyo dhooni iyo waxay cunaan iyo meelay sahdaan keliya la siiyo. taa xayawaankuba way u sameeyaan ilmahooda, laakiin waxay u baahan yihiin inaynu nolosha fikir saxa ka siino. kow, inaynu tusaale inagu u noqono, in nolosha tan sugaysa siday u wajihi lahaayeen dhinac walba marka laga eego in u diyaarin lahayd. taa marka maxaa ka horreeya walaal? waxaa ka horreeya inaad adigu waalid ahaan diyaarsan tahay. qof dhakhtaraa wax daweyn kara, qof injineeraa guri dhisi kara, qof macallinaa wax bari kara. suurtagal maaha qofaan aqoonta loo baahan yahay ama xirfadda loo baahan yahay lahayni inuu waxa loo baahan yahay sameeyo. marka qaybta ahmiyadda ay barbaarintu leedahay waxa weeye inuu waalid waliba yeesho aqoon barbaarineed. runtii waxaan rabaa inaan idinla wadaago 2 qiso oo aad iyo aad runtii saameyn u leh, tilmaamayana bulshadu marka aanay barbaarin saxa lahayn dhibaatada ka imanaya. qaybtan hordhaca buugga ayay ku yaalaan. waxaan rabaa inaan idinla wadaago si fiican aad u dhegaysataan. qaybta koowaad qisada koowaad waxa weye walaalayaal, macallin iskuul dhigayay waddankeenii Soomaaliya ayaa waxaa dhacday in ardaydu inay maalintii kalaaskii macallinkii buu soo galay isagoon diyaarsanayn.
caruurtii wuxuu yidhi kulligeen miiska madax saara. Caruurtii miiskay madax saareen iyagoo ku haya oo isna kursi uu fadhiyo ayaa waxaa loo soo sheegay in gurigiisii xaaskii uu furihii isku soo ilaaway. wuu tegey xafiiskii buu aaday arrintii baa loo sheegay. caruurtii kumuu soo noqona gurigiisu iska aaday. caruurtii miiskay madaxa ku haya. xisadii baa saa uga dhammaatay. macallinkii kalaa yimi. macallinkii kale markuu yimi wuxuu arkay ardaydan miiska madaxa ku haya. ardaydan miiska madaxa ku haya markuu arkay ayaa waxa dhacday inuu yiri maxaa dhacay oo aad miiska madaxa ugu haysaan. markaasay waxay yidhaahdeen macallinkii hore ee xiisadii hore nagu lahaa ayaa na yiri saara. isna wuxuu yidhi aniguna maanta casharaan idiin dhigama haye ku hay. arrintaas walaal macnaheedu waxa weeye in haddaanay bulshadu tarbiyad saxa helin inaanay awoodaynin inuu qofku xaqiisa sheegto oo isagoo oo laga gardaran yahay ama la dulmiye uu iska aamuso. waana sababta aynu ugu dulqaadanno madaxda dhibaatada badan leh. waa sababta aynu ugu dulqaadanno inaynu xaqeena sheegan weyno. qisada labaad ee kale walaalayaal waxa weeye qiso iyadana waaqica waddankeena ka dhacday. waxa weeye masaajid la buuxo oo intuu buux dhaafay bannaanka lagu tukanayo ayaa wiil yari soo galay. waa xilligii dhallinyaradani hadda ay aad u kacsanayd. ninkii imaamka ahaa oo salaaddii tujinaya ayuu u yimi. salaaddii iyadoo lagu jiro madaxu ka toogtay. imaamkii wuu dhacay. xabaddii waa la maqlay. dhammaan dadkii masaajidka ku jiray qof walba hortiisa u carar. waa la isjiira waa la isdardaray. wiilkiina isagoo tartiib isaga lugeynayo bannaanka hadnaqay. arrintaas iyadana waxay tilmaamaysaa haddaanay bulshadu tarbiyad saxa helin inay u nuglaanaysa cid walba oo ka awood badan. waana asbaabta haddii waalidkani ilmaha uusan barin in uu xaqiisa maxaa la yidhahdaa waxaanu doonayn u sheegto. waa sababta keenaysa in haddii ilmahani aan la barin in haddii doonitaankiisa la caburiyo, haddii loo diido inuu waxa uu dareenkiisa gudaha ku jira sheegto, waxa keenaysa in cidda uu kasta oo ka awood badan gacanta uu galo. marka walaalayaal ahmiyadda ay barbaarintu leedahay wax lasoo koobi kara maaha. bulshooyinka kala horumarintooda waxa sabab u ah nooca barbaarinta helaan. qaybta koowaad ee hordhaca buuggan sidee ilmaha uu kuu maqlaa intaasaan kusoo koobaya insha allahu tacaala iyadoo casharo ka kooban ah ayaan idinla wadaagi doonaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.